love you my baby, I love you my baby, love you my baby. فضلا haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. sheekadan waxay ku dhacday wiil magaciisa leeyahay Cumar iyo saaxiibkiisa waxay ku soo daayeen duurka waxayna xilli dambe u socdeen gurigooda kadib iyagoo iska socda ayaa nin gadaashooda ka hadlay wuxuuna ku dhahay gadaal ha soo fiirinaha. Cumar aad ayuu baqay wuuna istaagay gadaalna ma fiirin sababtoo ah ninkaas wuxuu maleynayay nin tuug ah oo bistoolad wato. run ahaantii Cumar aad iyo aad ayuu u cabsanayay wuxuuna islahaa gadaal haddaa fiirisid ama ninkan bistoole kugu dhuftaa. cabsidii ayaa aadna ugu badatay kadib Cumar saaxiibkiis ayaa gadaal fiiriyay asigoo waxba ka welwelin. sidoo kalena Cumar saaxiibkiis uu iska dhowla cadeynayay weliba asigoo gadaal fiirinaya waxaasna qof la kaftamayo oo kale u maleeyo. gadaal ayuu maanta oo dhan fiirinayay laakiin mugdi ay ahayd waxna uma jeedin. kadib indhaha ayuu taagay aad ayuuna u naxay sababtoo ah gadaashiisa wuxuu ogaaday in aysan qofna taagnayn. qofka la hadlaysay ayuu ku wareersanaa qofku uu ahaa. kadib ayaa hal mar waxaa lagu soo tuuray mindidii lugta ayay ka gashay. Cumar saaxiibkiisna aad iyo aad ayuu u naxay. kadib Cumar ayaa saaxiibkiis ku soo orday. kadib Cumar saaxiibkiis wuxuu ku dhahay gadaal ha fiirinin ee meesha ka orod. Cumar saaxiibkiis ayuu gacanta ka qabtay meeshiina wuu ka soo cararay asiga iyo saaxiibkiisba. kadib waxaa soo bursaday nin afkiisa dhiig leh gacantana mindi ku sito kuna leh waad dhimanaysaan labadiina. kadib Cumar gadaal ayuu fiiriyey wuxuu arkay nin wejigiisa dham dhiig gacmihiisana dhiig leeyihiin mindina wato. aad ayuu u naxay Cumar. kadib Cumar saaxiibkiis ayaa la qabtay. ninkii wejigiisa dhiig lahaana maanta oo dhan wuxuu isku dayay in uu lugta ka gooyo Cumar saaxiibkiis. mindidana maanta oo dhan ayuu ku celcelinayay. kadib Cumar ayaa soo cararay darba ayuuna weji u geliyey ninkiina meeshii ayuu ku sooxay. kadib way ka soo carareen labadooda meeshii. Cumar isla markii booliiska ayuu wacay arrinkii ayuuna la socodsiiyey. kadib booliiskii ayaa imaadeen ninkiina meeshii ayay soo qabteen. Cumar saaxiibkiisna lugtiisa waxay ku dhawaatay in la gooyo. run ahaantii arrinkaas shoog ayuu ka qaaday Cumar. saaxiibkiisna wuxuu ku dhahay gadaal haddii aan fiiri lahayn waxaan nuguma dhici lahayn gadaal inaan fiirina qalad ayay nuga ahayd. kadib ninkii booliiska ayaa qabtay gacmaha ayayna ka salideeyeen waxaana la ogaaday ninkaasi inuu cunay nin maskiin ah hilbihiisana asigoo nool oo jarjartay. arrinkaas markay maqleen Cumar iyo saaxiibkiis shoog ayay ka qaadeen aad iyo aadna way u naxeen sababtoo ah ninkan qof aan waxba ka samayn ayuu mindi dhabarka ka gelinayay kadibna hilibkiisa ayuu gogoynayay wuuna cunay. Cumar iyo saaxiibkiis waxay go'aan ku gaareen in ay mar dambe duurka aadin. haddii ay aadaanna waxay ogaadeen in gacanta laga soo goynayo. fadlan ha hilmaamin inaad fiidiyowga like gareyso.